iyadoo muddooyinkii u dambeeyay uu khilaaf xoogani ka dhex taagnaa golaha deegaanka degmada Burco ayaa qaar ka mid ah golaha deegaanka degmadaasi oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta dawladda hoose waxay dhaliilo xoogan u soo jeediyeen wasiirka hawlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland mudane Cali Xasan Cali Mareexaan. xildhibaanadani ayaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay inuu hoos u eego khilaafka ka dhex xaloosan golaha deegaanka. raacsanna madaxweyne qodobkii sida ahaa in ku wada shaqeynay labada sanadood noo siisay waraaqaha qoraalka ee mandate-ka xaqna aan u lahayn inaan suuqeynta sameeyno in muran ka yimi oo khilaaf ka soo galay halka oo aanu shalay ku aragnay in wasiirkii oo dhigay dhagaxdhigaas taa waxaan leeyahay madaxweyne inaad hoos u eegto oo himiladii iyo hankii aanu lahayn aan la soo taagin wasiirka hawlaha guud oo noo soo farageliyay shaqadii aanu ahayd degmadayadu ay lahayd ee ummadda ay noo igmatay ee ah sariibadaha hadeeba ku rooyahay horumarinta degmada xashiishka wadooyinka bacadlayaasha wixii aanu shaqo ku lahayn ee annaga shaqadayada ahaa inta wasiirkii hawlaha guud maanta aw noo gacan dhaafay waxaanu maanta shirkan jaraa'id u qabanaynaa inaanu kaga hadalno hawlahan soconaya waxaan marka ugu horeysa aanu ka codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in hawsha ka jirta dawladda hoose hoos loo eego anagoo waliba sheegaynaa in muddadii aanu joognay aanu hanti dheerku qaranku imanin guddida fulintuna aana inta badan ku dhaqmin miisaaniyadii aanu ansixinay 3 sanadood aynu joognay madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada waxaan halkan uga sheegayaa in yaroo kooban dadweynaha aanu mas'uulka ka nahay degmadan Burco waxaan la hadlayaa gaar ahaan la hadlayaa ganacsatadii daneynaysay suuqyadii aanu sameeynay ee egasiyaad iyo guriyada booliska waxaan u sheegaynaa guriyaha inaanu hakinay markii ay iska soo daba baxeen waraaqo isburinaya oo aanu ku jahwareeray marka intaanu ka saxayno haddii ilaahay yiraahdo waxaanu leenahay hantidiina iska gelina waayo sifa aan imka sharci ahayn ayaanu arkaynay ilaa daraad loo wada wax oo maaragtay shaqo meesha ka socoto boodh la taagay marka waxaanu leenahay inta aanu saxayno waraaqaha isburinaya waxantiya yeedi ka bixin dadweynaha degmada Burco waxaanu u sheegay ganacsatada hawl baanu haynay warqad madaxweynaha soo siiyaan haynay 3 waraaqood baa ka daba yimi isburinta waraaqaha waxa la mid la raaco wala garan waay 3 dawladood ma jiraan dawlad qura jirta intaanu saxayno madaxweyne qura jira intaanu waxa saxayno waraaqaha faraha badan la isburinaya ganacsatada waxaan leenahay maalkiinu iyo cidla ku dhicin maalkiinu iyo cidla ku dhicin kuwii hore maalka galiyay maalkooda hadal ku jira meesha 3 waraaqood baa maraya qaar baa shicibsitaa qaar baa hawlaha guudsitaa qaar baa anagu sidanaa dawladda hoose ahaan sidanaa waxaan leenahay hantidiina ha iska gelina meel hadal ku jiro hantidiina ha iska gelina meel aan cadayn intaanu saxayno ee isu imanayno dawladda haysata hadda wax ku darsataana deedinka wixii ni lumiyay waxaan kala leeyahay madaxweyne qoraalkan siisay 3 sano ka hor aan ku shaqeynay waxa yimi wasiir qoraalkiisna sita kiil mid lamida oo ilaa inteedii baa la soo siiyay bal madaxweyne xafiiskaagana bal qoraalada ka baxaya ilaali baa leeyahay qaar kale oo Soomaaliya ka soo bixi doona hadii sidan ay 10 warqadood ka soo baxaan qaar Soomaaliya laga hadlay ka soo bixi doona waxa sheekh ku saxiixay adu doonade madaxweyne waxa la xafiiskiisa ha ilaaliyo la xafiiskiisa lagu heshiis dadka ku jira guriyaha waxa leeyahay intaanu hawsha la saxayo ha ku jiraan cidii marka looga saaro oo u cadahay ma jira waraaqda gacsasada kaga saarna mata dawladda hoose kaga saarna mata wasaaradda hawlaha guud kaga saarna wadadkaas inta waxooda cadaanayaan waxaanay sidoo kale xildhibaanadani fariin adag u direen maayirka magaalada Burco iyo ku-xigeenkiisa oo ay ku eedeeyeen inay ku hawlan yihiin dhaca iyo boobka hantida dadweynaha anigu ahaa xildhibaanka u dambeeyay imika meesha loo bilo joogay haddana markii waxaan u weynay jaawarar fara badan oo aad fara badan oo maamul oo musuqmaasuq oo aan dhinaca raacay la garanayn waa nasiib darro waxaan ku wada soconay haddaan golaha nahayna maaha waxaan isku ognahayna maaha
وقايب نجارة أو دلش غير يسوون وسيركي ماشيين hanti dhowrkii loo soo diro anagu 4 sanadood aan joognay ana wax hanti dhowra oo hadii ku rooyahay soconaya aanan arag qaar yimina aanu hadii ku rooyahay saluugayno hawlahooda haddii aan la isugu tagin oo aan dhan looga soo wada sheesanin oo aan haddii Allah ka dhigayo aan dhan looga soo wada sheesanin waxba jirmaaya